بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درس كمان لوgu talagalay waxa weeyaan موضوع النار أما عذابك والعياذ بالله، اللهم أجرنا منها. waxaynu kaga warramaynaa cadaabka. ilaahay baana subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa si balballaadhan ugu soo bandhigay. haddii wakhtiga loo qoondeeyo aynu isku dayno nusuusta cadaabka iyo abwaabteeda ku saabsisan inaynu akhrino ee qur-aanka ku soo arooray oo keliya, waxaan isleeyahay waa ku filantay. sidaa awgeed waxaan isku dayayaa bacdi almuqtatafaat, ama inaan mowduuca intaan yaro qaybqaybiyo meel walba wax yar ka tilmaamo uun. ugu horreyn waxaan leenahay cadaabku waa xabsiga ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda caasida ee diidda ee ka gaalowda uu ku duleeyo, waana meel khasaare iyo khizyi lagula kulmo. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa basharka abuuray, kownkanay ku dhex noolyihiin oo dhan isagaa abuuray, waxaasoo nimca buu siiyey. waxa la weydiiyo keliya lagu itixaamay inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celiyaan. ilaa waad ku mahadsantahay waxa aadna siisay inay yidhaahdaan, oo ah inay dariiqiisa raacaan markaasi. hase yeeshee markii alle subxaana wa tacaala waxaasoo dhan siiyo, haddii la isindhamaro oo weliba ilaahay rasul soo diray digaysa oo waxa dambe dadka uga digaysa, waxa ilaahay uu samaystay ciddii diidda dariiqiisa inay raacdo. markaa mahmaa uu dunida soo boodboodo, ilaahay waa xaliim sabuur, waa ku dulqaad badan, laakiin markuu qabto cidina kama baxsato. meel buu ugu talagalay ilaahay subxaana wa tacaala uu ku cadaabo. saa daraaddeed ilaahay wuxuu ina leeyihi fii suurati ali cimraan aayaadka dhaadheer ee u dambeeya waxaa ka mid ah: rabbanaa inaka man tudkhili innaara faqad akhzaytah wamaa lildaalimiina min ansaar. allow ciddii aad naarta geliso faqad akhzaytah, idan waa daaru lkhizyi. naartu waa meer lagu dulloobo, waa cid dullowday, daalimiintuna gargaar ma helayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala naartaasi waxaan u samaystay buu leeyahy inaan marka hore idinku cabsi geliyo. qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahliihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraanu almubiin lahum min fawqihim dulalu min annaar wa min taxtihim dulal dalika yukhawifu allahu bihi cibaadah yaa cibaadi fattaquun. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala isagoo nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam la hadlaya, waxaad ku tidhaahdaa dadka: ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum, kuwa guuldaraystay ee naf iyo ahelba waaye guuldaraystay maalinta qiyaamo, kuwa guuldaraysta weeyaan. alaa dalika huwa alkhusraanu lmubiin, khasaara xaqi waa kaasun, waana khasaaro cad. kuwaasi waxay leeyihin baa ilaahay leeyahy min fawqihim dulalun min annaar wa min taxtihim dulal, kor iyo hoosba naar bay ku leeyihin. haddaba ilaahay wuxuuna leeyahy subxaana wa tacaala: dalika yukhawifu allahu bihi cibaadah. war mas'aladaas ilaahay subxaana wa tacaala waa idinku cabsi gelinaya. ee yaa cibaadi fattaquun baa ilaahay leeyahy, war addoommahayga iga cabsada. ilaahayna abuuraa wuxuu leeyahy war waa idin cabsi gelinaya. cadaabka aan ka warramayaana waa min baabi takhwiif, ee iga cabsada baa alla leeyahy subxaana wa tacaala, oo keligay caabuda baa alla leeyahy. ilaahay naartaasi wuu inooga digo, wuxuuna leeyahy: yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yumaruun. warinta iimaanka laga helayo baa la leeyahy subxaana wa tacaala: quu anfusakum waahliikum naara. waar lafihiinna ama naftiinna iyo reerkiinna iyo dadkiinna waxaa ka dhowrtaan baa ilaahay leeyahy. war cadaab iska ilaaliya. war cadaab dad iyo dhagax lagu hurin doono waar iska jira baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala.
إلهي وحين لي فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم وروحان إذن كدق يا با إلهي لي نارا تلظى ورنار هل عميسان إذن كدق يا لا يصلاها إلا الأشقى ورمقله كوهوغيو كديد مي وهبار كل عيمو يانا عد كلا مقاشو شقيقون باقلا الذي كذب وتولى با إلهي لي الذي كذب كإلهي بينيي طريقي سكتشيستي إلهي وحين لي سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد maalinta qiyaama ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala jahannama la keenaya yowmaidin yatadakaru linsaan markaasaa bini aadam waantoobaya wax xasuusanaya wa annaa lahu dikra baa ilaahay leeyay war markaa waanasa idinku sugnaatay yaquulu yaa laytanii qadamtu lixayaati calaacalkuu bilaabi doonaa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala markaasi isagoo le yaa laytanii qadamtu lixayaati hoogayge iyo shallaatadayde قدمت لحياتي ليت ولتمني يا ليتني شعلان لها يويا قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذبه عذابه أحد شعلان لها يبولي ما انتينا نلشيد وحهر مرصده إلهنا وحلي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد إذا النار توحى إلهي قرآن خوغو سفينيا إن بدن إن لينو ديغو إنينو كوان تونو ميشا سمآل كبشرية دقيب كمدي أي نقون دونت نار تاني وعينكي قفك قلام حول كل مياه حالوغو عبايا حالوغو هوانيا حالوغو عنيا see laysu xidhaya intay leeg tahay anwaacda cadaabkee yaalla waa noocma ilaahay baa qur-aanka inoogu caddeeyey rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay sausliihi saqar wamaa adraaka ma saqar laa tubqi walaa tadar lawaaxatu lilbashar waxaan ku ridi doonaa baa alla yidhi subxaana wa tacaala kuwa ka gaaloobay mid ka mida uu tilmaamaya saqar naarta saqara la yidhaahdo wamaa adraaka maa saqar oo maxaa idin ogeysiiye saqari waxay tahay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala saqara maxaa ka garanaysaa waxba laga garan maayo ilaahay baa sharxaya wuxuu leeyahy laa tubqi walaa tadar kama tegayso oo nolol uma daynayso walaa tadaru kagamana tegayso geeri baa la leeyahy geeri iyo nolol midna kuuma ogola nolol kugu dayn mayse way ku dilaysaa geeri kugu dayn mayse haddana dib baa lagu soo noolaynaya geeri iyo nolol midna kaaga tegi mayso naartaasi baa ilaahay leeyahy waa lawaaxatun lilbashar waa mid leefi ogoo diirka siibi og baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maxaa lilbashar bashrada loo sheegay dib baynu ka tilmaamay ilahi wuxuu leeyay kalaa inahaa ladaa war waa tuhol camaysa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala oo nasaacatan siibid badan lishawa shawaagu waa jamcu shawaatna waxaa la yidhaahdaa haragga madaxa saaran ilahay wuxuu leeyay waa nasaacatun lishawa haragga madaxa waa mid faydi og baa alla yidhi subxaana wa tacaala oo weliba tadcuu man adbara watawallaa kii jeestay ee dhabar jeediye cararay waa u yeedhaysaa wa jamaca fa awcaa yacni kii diinta iska diiday markuu dunida joogay ee xoole iyo adduun isku mashquuliyey kaas bay u yeedhaysaa baa alla leeyahy subxaana wa tacaala rabbi wuxuuna leeyahy kalaa layunbadanna fi lxutama bini aadamkaasi waxaa lagu gurayaa kuwaa ilaahay diiday
layunbadanna lagu tuure oo lagu tuuro wallee lagu ridee baa la leeyahy fi lxutama burburisa naar wax cajiinto oo burburisaan waxba ka tegin wamaa adraaka ma alxutama oo maxaa idin ogeysiye baa ilaahay leeyay xutami burburisi waxay tay maxaa ka ogtiin lama sifayn karo saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ku sharxay laba eray oo ah naarullah almuuqada waa ilaahay naartiisii baa la yidhi subxaana wa tacaala waa dab alla shiday dab bini aadam shiday ama cid kale shiday maaha waa dab rabbi shiday baa la yidhi waa ilaahay naartiisii dabkii alle weeye oo almuuqada la huriyey baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo maxaa lagu hurinayaa alxijaarata waannaas allatii taطalicu cala alaf'ida waa dab marka laysku ridaba qalbiga yacni markiiba dubka waa dhaafaysaa qalbigay gaadhaysaa baa la leeyahy subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyay fawmuhu haawiya wamaa adraaka maa hiya naarun xaamiya war waa naar kulul baa la leeyahy subxaana wa tacaala rabbi wuu inoo sifaynayaa cadaabkaasi iyo sida wax loo cadaabayo وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إلهي وحولي أصحاب الشمال كم حدك أكتي كوا بدح ذا كتاب كود آخر لغسيه قولدا محاك أكتين با إلهي إلهي سبحانه وتعالى قولدا نوحي كوشرتا با إلهي في سموم وحميم cadaab samuuma culamada soomaalidu samuumka waxay ku fasiri jireen cadaabka masaamta gala tingal leh waxaa la yidhaahdaa waa kulayl ama dabka soo baxaya xad aad moodayso inuu jidhka timuhu meesha ka soo baxaan uu gelayo iyo wa xamiim biyo kulul baa la leeyahy subxaana wa tacaala iyo wa dhillin min yaxmuum hoos hadh isaguna ka samaysan qiiq iyo dab isku jira laa baaridin walaa kariim oo aan qabow iyo wanaag toona lahayn baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwani waxay ahaayeen baa ilaahay leeyahy adduunkii intii la joogay qolo iska nimcaysato mutrifiina qolo qooqday bay ahayn kibirtay waxay ahaayeen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala kuwa dembiga weyn ku adkaysta kuwa yidhaahda war haddaanu ciid noqonno ma dib baa naloo soo bixinaya annaga iyo aabbayaashiyadii hore toona ilaahayna wuxuu leeyay dhammaantiin waa laydin soo ururinayaa naarta tan kulaylkeeda waxaa kaaga filan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy naarukum dabkiinnu wax allaaliya waxaynu dab dunida ku haynee bashar shiday ama mid bira lagu dhalaaliya ha noqdo ama technology miduu sameeye ha noqdo ama falkaana halkan ka soo wuxuu doonaya ha noqdee naarukum baa nebigu leeyahy juz-un min 70 juz-an min naari jahannam jahannamo marka 70 meelood loo qaybiyo meel ka mida buu u dhigmaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxay saxaabada yidhaheen yaa rasuula allahi in kaanat lakaafiya ilaahay rasuulkiiyo tanoo qura ku fillayd haddii tanba laysku cadaabo oo laysku ridayo tanoo qura ku fillayd ee 69 kale maxay qabanayaan fudilat calayhina ب69 juz-an kulluhuna midla xarihaa buu nebigu yidhi waa laga kor yeelay 69 gobol bay dheer tahay oo la wada kulayla baa ilaahay leeyso nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inطaliquu ilaa maa kuntum bihi tukadibuun basharka inta lasoo tubaa waxaa la yidhahdaa inطaliquu u socda ilaa maa kuntum bihi tukadibuun wixii aad beenin jirteen inطaliquu ilaa dhillin dii 3 shucab u socda baa la yidhaahdaa hoos 3 carab leh
waa dab hoos oo kala ah wax hadhaynaya oo saddex carab leh laa daliilin walaa yugni min allahab raaxa male baa ilaahay leeyaa hadh iyo wanaag iyo tuma'niina lagama helo walaa yugni min allahab ololkana kaa celin maayo hadhka waxaynu ku naqaanaa inuu noqdo meel naftu ay qabow biddo oo ay hadhsato naarta jahannamo hadhkeedu de waa hadh naareeduun saa daraaddeed buu alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walaa yugni min allahab inahaa tarmii bishararin kalqasri baa ilaha yidhi kaannahu jimaalatun sufr jahannamo dhimbiisha yare ka bigbigli waa sida qusuurtoo kale ama awrta waaweyn oo kale waxaad qiyaastaa dabka marka la shido dhimbilo yarba bidhbidhbidh yidhaahdo kor uga kaca oo intay hawada ku maqan yihiin dee bakhtiya dhimbil yar ama wax yar oo ka finina dabka oo intuu hawada ku soo maqan yahayba uu bakhtinaya jahannamo waxaa ka fininayaa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kaannahu jimaalatun sufr weeyaan awr wax laaleeg bay tuuraysaa lahum min jahannama mihaad wa min fawqihim ghawaash wakadalika najzi aldaalimiin dadku jahannamo waxay ku leeyihin baa ilaahay leeyay mid loo goglo iyo mid la huwado yacnii dhan walba way kaa xigtaa meel aan naari kaa jirini ma jiro ilahi wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala war cadaabkaasi iska ilaaliya cadaabkan ilaahay inooga digayaa waa mutafaawid dadku ma sinna sida loo cadaabayaana isku mid maaha qaar ilaahay wuxuu leeyahy aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaah zidnaahum cadaaban fawqa alcadaabi bima kaanuu yufsiduun kuwii laba isku darsaday baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala gaalnimo iyo dadku ay diinta ka celiyaan yacni qof waa gaal lafihiisunbuu gaal u yahay laakiin cid kale dhib kuma hayo midna waa gaal kibirna ku darsado ah sida kuwa badan oo meelahan jooga kibir kale ku darsado ah wixii yidhaahda waan islaamaya ama islaamnimada raacana wuu tumaya waa celinaya kuwa ilaahay wuxuu leeyahy zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab iyaga cadaab baan cadaab ugu daray kii gaalnimo qura ma leh ee gaalnimadii iyo sadun can sabiili illaahi bay isku dareen dabeetana ilaahay wuxuu leeyahy zidnaahum cadaaban fawqa alcadaabi bima kaanuu yaksibuun cadaab lagu kor daray bay leeyihiin waxay kasbadeen daraaddood duulka cadaabka kulule waxaa ka mid ah fircawn iyo intiisii waxaaqa biaali fircawna suu'u lcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wayowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab maalinta qiyaamana fircoon intuu xabaasha ku jiro adduunka waa la qarqiyo waa la halaagay xabaasha intuu ku jirana gelin hore iyo gelin dambeba naar baa la marinayaa maalinta qiyaamana waxaa la odhanayaa cadaabkii u kululaa gal kuwa cadaabka kulule waxaa ka mid ee jahannamo halka ugu hoosaysa ku jira ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira baa ilaha yidhi jahannami waa god dheer oo hoos u qodan waa godkuu nebigu ku tilmaamayay dhagixii 70 sano ka hor lagu tuuray inuu hadda ka dhexsan qadhayo godka intaa leeg meelba meesha kasii hoosaysa kasii kulushay halka u hoosaysa kooxda ku jirta waxaa ka mida baa ilaahay leeyay munaafiqiinta kuwa afkana islaamnimo ka sheeganaya uurkana gaalka ka ah ee muslimka dhibaya kuwaasi baa ilaahay yidhi iyagu way ka meel hooseeyaan fi darki alasfali min annaar halka ugu hoosaysa naartay ku jiraan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa inay dadkani kala cadaab yaryiinoo xadiidka saxiixa wuxuu ku tilmaamayaa ina adnaa ahli nnaari cadaaban ka ugu cadaab yar maalinta qiyaame waa qof 2 kabood oo naara loo geliyo oo maskaxdiisu xaggaa ka buqbuq tidhaahda buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yacni canqowgaa cadaabtiisu joogtaa waa 2 kabood oo quru gashayi laakiin 2daa kabood ee naartaa kulaylka ka baxaya ayaa madaxu ka burburh leeyahy saa daraaddeed baa axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa cadaabku qaaruu gomadda u joogo qaaruu meel dhexe u joogo qaaruu meel ka soo sarraysa u joogo iyo qaaruu dhan walba ka wareegay
ayay u kala qaybsan yihiin. kuwa ugu cadaabka yar leh waxaa ku jira sida axaadiista saxiixii ku soo aroortay nebi maxamed adeerkii oo uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa u shafaaco qaadayaa in loo fudaydiyo gaalnimuu ku dhintay laakiin difaacii uu nebiga difaaci jiray ayaa cadaabka loo khafiifinayaa. wuxuu ka mid yahay kuwaasi kabaha naareed loo gelinayo. jahannamo waxaa laynoogu tilmaamayaa subxaana wa tacaala inay leedahay albaabo badan oo kala nooco qoloba meel ka gelayso. waina jahannama lamawciduhum ajmaciin laha 7 abwaab likuli baabin minhum juz'un maqsuum. jahannama lamawciduhum ajmaciin gaaloo dhan jahannama u ballana baa la yidhi subxaana wa tacaala. laha 7 abwaab 7 albaab bay leedahay baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala. jahannama ilaahay wuxuu ku tilmaamaya qiyaamaha marka la keeno in ay cunuq dheeri luqun dheer baa ilaahay jahannamo ka soo dhex saaraya oo indhaloo wax arkaysa oo dhagaloo wax maqlaysa oo hadlaysa. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy idaa ra'athum min makaanin baciid samicuu laha tagayudan wa zafiira. idaa ra'athum hadday ka aragta baa ilaahay leeyahy jahannami meel fog samicuu lahaa tagayudan wa zafiira. waxay maqlayaan cadhada ay u cadhaysanta iyo googo ay kala go'go'ayso. takaadu tamayazu min alghayd waa ka ilaahay ku tilmaamaya. waxay ku dhowaataa cadhaday duulka u qabto. idaa ulquu fiiha samicuu laha shahiiqa wa hiya tafuur takaadu tamayazu min alghayd. marka koox iyaga ka mida ay qaadataba oo lagu ridaba waxay ka maqlayaan baa ilaahay leeyahy shahiiqan. shahiiqu waa neefta dib loo qaato ee sanqadha badan samaynaysa. wa hiya tafuur iyadoo karaysa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. idan dibu neefsi iyo horow neefsi qaylada zafiirna waa la sheegay. waa labada cod ee isu cagsiga ah ayay ka maqlayaan cadho daraaddeed. cadhaday gaalka u qabta ilaahay wuxuu leeyahay takaadu tamayazu min waxay ku dhowaanaysaa cadho daraaddeed inay kala gogo'da baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa jahannamadaasi dadka ku jiraa inay qaylinayaan oo ay leeyihiin halaag dalbanayaan. waxaa qur-aanku inoo tilmaamayaa malaa'igta jahannamo haysaa inay yihiin qaar aan jixinjixa aqoonin. calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad. jahannamo waxaa jooga baa la yidhi subxaana wa tacaala malaa'ig qalqallafsan oo xoog badan. xagga xoogga iyo qaabkay wuxuu cadaabayaan waa duul hawrkar ah oo xooggan. xagga dabeecadda iyo akhlaaqdana waa duul qallafsan oo aan naxariis loogu talagelin. xagga inay awaamirta alle fulinayaanna laa yacsuuna allaha maa amarahum. wax kastoo alla furo waa fulinayaan. awooddana ilaahay wuxuu leeyahy wayafcaluuna maa yu'maruun. wixii la farana waa fulin karaan oo waxay u awood waayayaan ma jirta baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. walciyaadu billaah. jahannama ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa cunnada iyo raashinka iyo waxa yaallaa waxay yihiin. laysa lahum طacaamun ila min dariic laa yusminu walaa yugni min juuc. marka cunnada alle ka warramaya ilaahay wuxuu leeyahy jahannamo gudaheeda waxay ku leeyihiin geed dariic la yidhaahda baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. waxaan maqli jiray mufasiriintii soomaaliyeed oo tidhaahdaa waa geed yamaarig waaweg bay yidhaahdaan. yamaarigu waa geed qodax leh oo geelu daaqo. laakiin kani yamaarigu iyo wax u dhadhow toona maahee waa geed jahannamo ku jira oo laa yusmin walaa yugni min juuc. waana cunno. cunnada maxaa loo cunaa? 2 mid uun. inaad ku xoogaysato amase inay horta gaajada kaa bi'iso. cunno aan gaajo tiraynin aad cunayso gaajo tirmi mayso. koritaanna ma jiro lagu naaxi maayo. waxba maaha markaa. waa cunna baa ilaahay leeyahy haddana laa yusmin laguma naaxo walaa yugni min juuc gaajana wax kama tarto. jahannamo waxaa lagu cunayaayoo ka mida markay gaajadu ka badato ina shajarata azaquumi طacaamu lathiim
kalmuhli yagli fi lbutuun ka galyi alxamiim. geedka zaquumka la yidhaahdaa baa ilahay yidhi waa طacaamu lathiim, dembiilayaasha raashinkooda weeyaan baa ilahay yidhi subxaanah wa tacaala. kalmuhli yagli fi lbutuun, sida saliidda la kariyey, xajilka saliiddae karsamay sidiisoo kale. saliiddu waa ashyaada bay ka mid tahay aan qaboobin, ka dab ka qaado mudday sidii usii karsanaanaysa. sida kaas bay calooshooda ka karaysaa buu alla leeyahy subxaanah wa tacaala. ka galyi alxamiim, biyo kululi siday u karaanaysu laba rogaan ayuu calooshooda uga karayaa. ilaahay baa wuxuu leeyahy adalika khayru nuzulan am shajaratu zaquum inaa jacalnaaha fitnata lilظaalimiin inaha shajaratun takhruju fi asli aljaxiim طalcuha kaanahu ru'uusu shayaaطiin fainahum laaakiluuna minha famaali'uuna minha albuطuun ثuma ina lahm calayha lashawba min xamiim. ilaahay wuxuu leeyay subxaanah wa tacaala, geedka zaquumka la yidhaahday cunayaan. waa geed ka baxa baa ilaahay yidhi jaxiimo gunteedu ka soo baxa. waa geed naareed. waa geed baa ilaahay leeyahy foolxumada madaxyadiisu ama waxa midhaha ka baxaa waxay u egyihiin baa ilaahay leeyahy sidii madax shaydaan. shaydaan maynan arag, laakiin waxaa laga rumaysayay wax fool xun inuu yahay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala, geedkan midhihiisu wuxuu u eg yahay kaannahu ru'uusu shayaaطiin, shaydaamada madaxoodoo kale bay u egyihiin baa alla leeyahy subxaanah wa tacaala. waxay culammadu yidhahdaan geedkani dhereg ma leh oo gaajo ma bi'iyo, oo wuu arag xun iyo foolxumuu leeyahy, oo wuu qurhmuun yahay. culammadii soomaaliyeed waxaan maqli jiray markay fasirayaan iyagoo yidhaahdaa waa geed u eg bay yidhahdeen uudi abtahaysta. uudi abtahaysku waa geed buuraha ka baxa oo qurhmuun, oo markaa buurta hadduu si fiican uga baxo in saxaro lagu qubay baad moodaysaa, meeshoo dhamme way uraysaa. laakiin waa geed baa ilaahay yidhi buur kama baxee asluljaxiim buu kani ka baxa. waa geed ka baxa maxay? naarta gunteeda baa ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala. idan waa geed mandar ahaanu fool xun, oo dhadhan ahaanu xun, oo cunno ahaan karaya. maxaa geedka kan gaajo daraadda bay isku dayayaan inay liqaanun haatan? haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa markay isaga cunaanna bele kala qabsanayso a inay harraadaan. fainahum laaakiluuna minha famaali'uuna minha albutuun ثuma ina lahm calayha lashawba min xamiim ثuma ina marjicahum la ila aljaxiim baa ilaha yidhi. waxaa lagu waraabinayaa biyo kulul ayaa haddana la siinayaa. ilahay wuxuu qur-aan ku tilmaamayaa wadarnii wاlmukadibiina uli الnacma wamahilhm qaliila ina ladayna ankaala wajaxiima waطacaama daa gusa wacadaaban aliima. aniga intay beenisay iyo aniga isukaaya daaya baa alla yidhi subxaanah wa tacaala. intay beenisay adduunkaan u nimceeyey se iga gaalowday aniga ii dhaafa baa ilaha yidhi. wamahilhum in yar suga baa alla yidhi subxaanah wa tacaala. innaga intan yar baa inaa laga badan oo gaalada maxaa alla u halaagi wayso, kuwan wax dhibayso, kuwa caynkana. ilahina wuxuu leeyay innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiban baa ilahay leeyay subxaanah wa tacaala. waxaa alla ku tilmaamaya wamahilhum qaliila, in yaru kaadiya. ina ladayna ankaalan wajaxiima baa ilaahay leeyay. wax lagu xidho iyo jaxiimaanu haysanaa baa ilaahay yidhi. wa طacaaman daa gusa, cunno aan hunguri mar lahayn. cunno gaajo daraaddeed markaad isku qasabto hungurigana mari mayso, waa mid lagu mergada baa alla yidhi subxaanah wa tacaala. wa cadaaban aliima, iyo cadaab wax laxwiya. طacaamka iyo sharaabka ahlu naarka waxaa ka mid ah ghisliin iyo ghasaaq. ghisliinka iyo ghasaaqu falaysa lahu lyowma haahunaa xamiim walaa طacaamun ila min ghisliin laa yaأkuluhu ila alkhaati'uun. goobta tan maanta kuma haystaan baa ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala. cid u dhow oo qariiba ma haystaan, ama cid wax tarta. cunnana ma haystaan baa ilahay yidhi ghisliinka mooyaane. ghisliinku waa shay baa ilaahay leeyay laa yaأkuluhu ila alkhaati'uun. dembiilayaasha mooyaane cid kale ma cunto. aayad kalena ilaahay wuxuu leeyahy hada falyaduuquuhu xamiimun waghasaaq. alamru hada
falyaduuquuhu xamiimun waghasaaq hadha dhamiyaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala biyo kulul iyo ghasaaq iyo wa aakharu min shaklihi aswaaja haddii ahlu jannaa cunno kala wada noocnooca la siinayo qoladan laftooda cunno kala noocnooca la siinaya wa aakharu min shaklih aswaaj baa ilahay yidhi qaar kaloo kuwaa la mid ah oo noocyaa ghasaaq iyo qisliinku maxay yihiin culammadu waxay ku fasiraan waa uskaga iyo qurunka ka dareera dadkan marka la shiilo kudaafadoodii baa dib loo cabsiinaya wixii dheecaan ka baxay ee uskag iyo qurun iyaga ka baxay ayaa ah casiirka ama fawaakihda ladiidka meesha lagu cabayaa waa kuwaas baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyay wasuquu maa'an xamiima faqataca amcaa'ahum wasuquu waxaa la waraabiyaa maa'an xamiima biyo kulul baa la waraabiyaa baa ilaahay leeyay oo faqataca wuxuu gooyaa amcaa'ahum xiidmahooda ilaahay ku abuuray hadduu isagu ku cadaabayo saaad u baxsanaysaa culammadu markay ka warramayaan kuwan maanta dunida jooga markay ka warramayaan qofka bini aadamka iyo dareemayaashiisa dareemayaashu waxay ugu badan yihiin diirkan sare meelaha kale ay ugu badan yihiinna waxa weeyaan waa mindhicirayda marka la jara bay yidhaahdaan sida daraaddeed ayaa qofka caadigii markuu wax cunayo haddaad gacanta kaga gubato waxaad qaaddo ma tuurtidee afku qofku ku rida afka waxaad kaga gubato intaad ka yaro lamaclamacsiisaabaad iska liqdaa taa macnaheed waxa weeyaan calooshu kulaylkan iyo dhibtan hore uma dareento haddiise ay nabar leeday wax waliba way dhibaan waa sababta dadkan alsarka iyo xanuunadan leh marka wax yar oo meeshaasi ay taabtaan aad mooddo in dab lagu dhajiyey ay la gelgelmayaan ilaahay ku abuuree garanaya meesha dareenkaagu uu u badan yahay amcaada xiidmaha ay dilaacinayaan baa ilaahay biyaa nooca kani maxaa loo dilaacinayaa inuu cadaabka dhadhamiya baa la leeyahy cadaabka inaad dhadhamisid daraaddeed ayaa loo dilaacinaya ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wain yastagiithuu yugaahuu bimaa'in kalmuhli yashwi lwujuuh bi'sa asharaabu wasaa'at murtafaqa hadday kaalmo dalbadaan baa alla leeyihi markay qayliyaan ee kaalmo dalbadaan yugaahuu bimaa'in kalmuhl biyo fool xun oo kalmuhli ka cakri sayt ah ayaa la siinaya biyo isjiidanaya yashwi lwujuuh waa biyo inuu cabadaayo markuu caynkan yidhaahdo wejiga diirku ka tegaya baa ilahay yidhi bi'sa asharaabu wasaa'at murtafaqa wastaftaxuu wakhaaba kullu jabbaarin caniid waxaa hoogay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kullu jabbaarin caniid min waraa'ihi jahannam yusqaa min maa'in sadiid yatajaracuh walaa yakaadu yusiiguh wayaatiihi almowtu min kulli makaan wamaa huwa bimayit wa min waraa'ihi cadaabun ghaliid alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaa hoogay ku kastoo isweyneeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala ku madax adaygay waxaa ka dambeeyo hortooda ah jahannama waxaa lagu waraabinayaa baa ilaahay leeyay min maa'in sadiid biyo maxay ah biyo qiix iyo maxaa la yidhaahdaa uskaga ka dareera iyaga ah yatajaracu wuxuu isku dayaa inuu qurquriyo inuu isdhaafiyo walaa yakaadu yusiiqu uma dhowaanaya baa ilahay yidhi inuu dhuunta mariyo isaga waa la cadaabaya waa lagu qasbayaa inuu qurquriyo naf baa u geynaysa wuxuu isku dayayaa inuu qurquriyo dabeetana rabbi wuxuu leeya yatajaracu inuu liqsiyaa buu isku dayayaa laakiin walaa yakaadu yusiiqu uma dhowaanayo inuu dhuun mariyo baa alla leeyay subxaana wa tacaala meel walba geeraa kaga imanaysa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala laakiin haddana wamaa huwa bimayit laa tubqi walaa tadar haddana ma dhimanaya baa ilaahay leeyay wa min waraa'ihi cadaabun ghaliid waxa kan gadaashiisa cadaab kulul baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaba إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا
laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaba naarta gudaheeda laguma dhadhamiya baa ilaahay yidhi ku qabow iyo wax la cabo toona waxaase lagu dhadhamiyaa xamiiman waghasaaqa biyo kulul iyo qurunka iyaga ka dareeray waxaasina waxa weeyaan baa ilahay leeyahy jazaa'an wifaaqa waa abaalmar u cuntamaba alla leeyahy subxaana wa tacala abaalmar ku habboon weeyaan waayo innahum kaanuu laa yarjuuna xisaaba baa ilahay yidhi dunida markay joogeen baanay filayninba in la xisaabi doono aayaadkaygina way beeniyeen ba alla leeyahy subxaana wa tacaala idan qur-aan badan baa ilaahay wuxuu kaga warramayaa waxa la cabayaa iyo waxa la cunaya jahannamo yaalla inay ka hayiin talow huga la xidhanaya muxuu yahay ilaahay baa wuxuu leeyahy haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim faaladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabun min naar yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim yusharu bihi ma fii butuunihim waاljuluud walahum maqaamicu min xadiid كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كوا قالوا بيبا إلهي لي قطعت وحلو قوينيا كأنما دور ولي انت لقايا لو تفصيلنا يو وحلق لو قدقايا قطعت لهم ثياب من نار در ناريت بلو قوينيا با إلهي لي در ناريت أي لي يصب من فوق رؤوسهم الحميم dushaa biyo kulu lagaga shubayaa baa ilaahay leeyahy biyaha dusha lagaga shubaa yusharu bihi maa fii butuunihim waxaa ku karsamaya waxa calooshooda ku jira walahum maqaamicu min xadiid sabarada naaray leeyihin oo lagu tumayo kulamaa araaduu an yakhrujuu minha min gam mar kastoo isku dayaan inay ka baxaan gam iyo hami iyo warwar iyo walbahaar iyo dhib haysata uciiduu fiiha waduuquu cadaaba alxariiq waa lagu celiyaa oo waxaa la yidhahaa dhadhamiya cadaabka waxguba watara almujrimiina yowmaidin muqaraniina fi lasfaad saraabiiluhum min qatiraanin wataghshaa wujuuhahum annaar liyajziya allahu kula nafsin ma kasabat ina allaha sariicu alxisaab إلهي وحليه سبحانه وتعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وحاضر كيسا كوة دنبيلياشو مالمها كان مالنتة لحد حديبا إلهي إليه سبحانه وتعالى سرابيلهم من قطران لرك اللوغون يسروا الذي وحي حدنيان وقطران ونحاس مذاب أما الدامر أما نحاس الدلاليي وتغشى وجوههم النار وجيدودنا النار بعد دبولي سبا إلهي إليه سبحانه وتعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب جهنم وحاسو عذاب يالين هدنا حرمته دو معر عراري كريسي دو ملق لك دمي كريسيد اوات حرحرام طاي إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وصعيرا إن لدينا أنكالا وجحيما وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إلهي بوحلي سبحانه وتعالى قال ذا وحنو دياريي سلسلة إيا أغلاش وحلا إلى قوة الغنطة لغحره iyo saciira naar waxa gubta baa ilaahay leeyahy agtayda waxa yaal baa ilaahay leeya ankaalku waa xadhko wajacalna alaglaala fii acnaaqi aladiina kafaruu ilaahay wuxuu leeyahy waxaa la yidhaahdaa qabta oo xidhxidha oo jahannamo ku tuura oo dabeetana waxa ku wareejisaan baa la yidhahaa silsilad 70 diraacan 70 dhudhun ah waxay culimmadu yidhaahdaan fii silsila baa la yidhi maaha dushaa lagaga xidhayaaye gudaha lagaga xidhxidhayaa bay leeyihin afkaa laga geliya dabadaa laga saaraa dabeetana saasaa loo taxayaa bay leeyihin alam tara ila aladiina yujaadiluuna fii aayaati illahi annaa yusrafuun aladiina kadabuu bilkitaabi wabima arsalna bihi rusulana fasawfa yaclamuun
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون إلهي سبحانه وتعالى وحينو المامية ميانا داركينين با إلهي ليكوان إلهي آيات كيسا كمرمية كو إلهي كتاب كيسا بيني الرسوش وحي عن صافري إلهي وحلي إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون مركا قورت اللوغليو xadhkaha qoorta loogu xidho ee silsiladaynta lagu xidho lagu jiido filxamiimi huma fi nnaari yusjaruun ee biyaha kulul la mariyo ee dabeetana naarta lagu gubayo baa alla leeyahy subxaana wa tacaala oo lagu odhan doono war waxaa caabudi jirteen ilaahay hayrkii miih ay odhan doonaan waa naga lumeen bal waxay odhan doonaan waxbaba maanan caabudi jirin oo muran bay bilaabi doonaan kadalika yudilu allahu alkaafiriin ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض waxaa la yidhahdaa arrinkaasi wuxuu idinku ahaaday sababtii a ahaydeen dunida korkeeda kuwa kibra oo gardarro la kibra iyo wa bimaa kuntum tamraxuun iyo wixii aad la farfaraxsanaydeen ee la ordayseen ee ilaahay u caasideen gala baa la yidhahdaa albaabada jahannama fa bi'sa mathwa almutakabiriin intii kibirtay meelay u hoyata halkaasaa u foolxun baa ilaahay leeyay muslimiintana ilaahay wuxuu leeyahy isagoo nebigii la hadlaya calayhi salaatu wasalaam fasbir sabir baa la yidhi ilaahay ballankiisu waa xaq gaal baa wax diliya gaal baa meel orday waxba ha odhanin baa ilaahay leeyahy fasbir ina wacda allaahi xaq ilaahay wuxuu ballan qaaday waa dhab ee haddii aan ku tusiya baa ilaahay yidhi wixii aan u yaboohay wax ka mid ah iyo haddii aan ku oofsado iyagoo iska barwaaqaysan gaaladu aan cidina wax ku dhicin labada mid walba fa ilayna yurjacuun baa ilahay yidhi aniga ii soo noqonaya إلهي وحلي وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آيات كاسردن إلهي وحكوت المامي النار تن ميلاي حرحرين واني حريتها السنين نيهين بل إلهي وحلي إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة والقد بولية وطيرار دار بهدنا لو حلية أهل النار إلهي وحكوت المامية سبحانه وتعالى حال كودوني حالا لشيء كريم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إلهي وحلي سبحانه وتعالى قواس ونفتوريا وقيلنيا با إلهي إليه وهم فيها لا يسمعون وانا دقبيليا وحبا مغلي مايا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وميلا بقادين يسور دوين تشيريني أهل النار كإلهي وحلي كلما دخلت أمة لعنت أختها كوحي مركا يقشبا كوح دا كدن بيسي نعضشاه kuwii ay dunida markay joogtay u hiilinaysay bay nacdashaa kuwii madaxda wahaabaa nacdala kuwii adduunka balaayada isugu hiilinayo dhan kullamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha baa ilaahay leey qola markay naarta gashaba kuwa kale ayay lacna u soo jeedinayaan baa ilaahay leey subxaana wa tacaala
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إلهي سبحانه وتعالى حين شاقي عدي آخر ميزان كيسو فضضاضه إن جهنم لقلين أيه تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون نار با وجهك كله في سبا إلهي سبحانه وتعالى دبتنا كالحين بين غنيا كالح ودبنتن وقروا عررته حق سركو كنا بنته يتكلها سو عررته وحلو إلى ورميان إلهي آيات كي سويدين سو قاعدين دوني مركا تشوكتين حقكم مغنيدين ميان قرآن ليدين أخرنين وحيد هذا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين إلهي وشقين ماذا يدبان نقو حق بضطة وحنا يكوالون صن إلهي يوم مرء نقصر فإن عدنا فإنا ظالمون مرضا بهدان ونقونا نقا ظالمين إلهي وحكو إلهي اخسأوا فيها ولا تكلمون كهوغا ودب هاي لهاد لنا بالله إله سبحانه وتعالى عدي الله إله ده هوغ وهوغيسا waxaa haydeen baa ilaahay leey dunida markaa joogteen addoomahaygii aniga iga cabsanayay ayaa ku dheeldheeli jirteen baa ilaahay leey ilaa ay aniga xuskaygii idin ilowsiiyeen oo waxaa haydeen addoomaha ilaahay kuwa ku qosqosla baa ilaahay yidhi innii jazaytuhum alyawma bima sabaru annahum humul faa'izuun iyagana waxaan ka abaalmariyey sabirkii ay sabreen oo maanta iyaga guulaysanaya baa la yidhi subxaanahu wa tacaala cadaabkani waa mid aan dhammaanaynin isbeddel lahayn ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nuslihim naara kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan gayraha liyaduuqu alcadaaba ina allaha kaana casiizan xakiima kuwa ilaahay ka gaaloobay baa la yidhi subxaana wa tacaala sawfa nusliihim naara waxaanu ku ridaynaa ku solaynaa ku karinaynaa naar baa la yidhi subxaana wa tacaala maxaa ku dhacaya kulamaa nadijat juluuduhum badalnaa juluudan gayraha badalnaahum mar kastoo diirku bislaada baa ilaahay yidhi diir kaleaanu gelinaynaa rabbigii ku abuuray ee ku yaqaanay baa cadaabkana wada insaanka diirkan sare waxa ugu jira dareemayaashiisa dhammaantood mid taabasho og mid kulayl og wax kasta dareemayaashu xagga sare ku badan yihiin waa raadaar markaanaad caadiga ta ilaahay ugu talagalay inay ku ilaaliyaan adigoo iska sii jeeda haddii dab ku taabto wax ku taabtaan markaaba waad ka boodaysa haddii aanu diirkan ku badnayn maad ogaateen ilaa iyo inaad gubato mooyaane maad gareenteen waa nicmat ilaale marka hore waa dadka qaar baabay ku dhacday alfred wiil yaroo la odhan jiro ingiriis aha waxaa ku dhacay in uu waayo daawuhu dabka saaraya gacantiisoo fashfashlu daawanaya waayo waxaa ka lumay dareenka dhammaantii baa ka lumay
mar kastoo uu hoos u sii socdo dabku dareenkaa soo yaraada. sida awgeed qoladan dabdamayaashiiyo dhakhaatiirtiiyo waxaasi qofka gubta inuu aad u gubtay iyo inaanu dabkiisu fudud iyo waxa lagu kala gartaa. hadduu cabaadayo dabkiisi wuu fudud yahay, waayo weli waxaa nool dareemayaashii sare ee waxa kan dareemayay. hadduuse qofku intuu gubtay juuqba odhan waayo, kaasaa khatarsan labada. oo waxa weeyaan waxaa go'ay guntii dareemayaashoo dhan baa soo go'ay oo si fiican buu u gubtay. saa daraaddeed dareenkii baa lumay oo marka kan dabka dareemi maayo. ilaahay wax abuuray baa raba inuu wax cadaabo. sidaa awgeed ilahay wuxuu leeyay kullamaa nadijat juluuduhum, mar kastoo diirku bislaadaba diir kalean geliyaabaa ilaahay leeyay. ahlu jahannam mar kastoo diirku bislaadaba automatically diir kalea gelaya. waayo ilaahay baa sharxaya wuxuu leeyahy liyaduuqu alcadaaba, si ay cadaabka u dhadhamiyaan baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala. si ay cadaabka u dhadhamiyaan ayaan sida tan u yeelay. in allaha kaana casiizan xakiima. jahannam ikhwati fi lcaqiida waa meel umniyaadka ugu waaweyne ay yihiin geeri. hadda geeridaa laga cararaa, laakiin ahlu naarku ilaahu maanu marun halaagsanna bay leeyihin. waidaa ulquu minha makaanan dayiqan muqaraniina dacow hunaalika hubuura laa tadcu lyowma hubuuran waaxida wadcuu hubuuran kaiira. waxaa la yidhaahdaa hoogga iyagow kaalay bay yidhaahdaan. dabeetana waxaa la yidhahdaa hal hoogoo qura maanta ha u yeedhanine hoogag badan u yeedha baa lagu yidhaahdaa. ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala ina almujrimiina fii cadaabi jahannama khaaliduun laa yufattaru canhum wahum fiiha mublisuun wamaa dalamnaahum walaakin kaanuu hum aldaalimiin. mujrimiintu cadaabka jahannamay ku waarayaan baa ilahay yidhi. laa yufattaru canhum, marnaba kala googo' ma leh baa ilahay leeyay. mar la nasinaya ma leh. cadaabkani si otomaatika ilaahay u wadaa. diirkaasi markuu ku bislaadaba dib baa lagu gelinayaa. ma leha baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kala go'. wahum fiiha mublisuun, meeshaasaanay ku jiraan iyagoo quustay baa ilaahay leeyay. ablasuu min raxmat illaah. wamaa dalamnaahum walaakin kaanuu hum aldaalimiin. anigu maan dulmimin baa alla leeyay subxaana wa tacaala, iyaga aha kuwa naftooda dulmiyey. wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk. codsigu waa kan marka. maalik khaasinu jahannam, jahannamo malaga haya ayay waxay leeyihin ilaahay waxaad haddaba noo weydiisaa liyaqdi calaynaa rabbuk, inuu na dilo mar uun inaanu dhimanno noo weydii. waxay culammadu yidhahdaan maalik baa intuu iskaga aamuso kumaankum sannadood kadib buu wuxuu idhaahdaa innakum maakithuun, meesha waa ku jiraysaan. cidna wax la weydiin maayo, cidna meeshaa ku jiraysaan. laqad ji'naakum bilxaqi walaakina akharakum lilxaqi kaarihuun. ilaahay baa wuxuu ina leeyahy war xaq baanu idinla nimi, laakiin dadka intiisa badanow xaqaa nacdeen baa alla yidhi subxaana wa tacaala. waqaala aladiina fi nnaari likhazanati jahannama adcuu rabbakum yukhafif canna yowma min alcadaab. warku wuxuu soo gaadhayaa marka dambe geeri iyo wax walba laga qusto. hal maalin oo qura haddaba hana laga khafiifiyo, wax ka badan ma rabno. maalin keliya uun yaana la dilin, yaana maalin qura ha nala ogolaado. khasanatu jahannam bay saa ku yidhaahdaan udcuu rabbakum yukhafif canna yowma min alcadaab. waxaa loogu jawaabaa awalam taku qaaluu awalam taku ta'tiikum rusulukum bilbayinaat. war miyaan rasuulladiinni idiin imanin markaad dunida joogteen waanay bayino cad idinla imanin? qaaluu bala, waxay dhahaan maya rusushii timi. qaaluu fadcuu wamaa ducaau lkaafiriina ila fii dalaal. haddaba annagu ilaahay idiin baryi mayno, waxba idiin weydiin maynaa la ydhahaa. idinku ilaahay baryo oo naarta ka qayliya. wamaa ducaau lkaafiriina ila fii dalaal. nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaynu hal xadiis sheegno oo saxiixa waxa uu tilmaamaya ina ahlu nnaari layabkuun xataa low ujriyat الsufunu fii dumuucihim jarat wainahum layabkuuna dam. ahlu naarku waa ooyayaan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, xataa haddii doonyo la mariyo oohintoodu meeshay dareertay, doonyaha way qaadi lahayd buu alla leeyay, ayuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. dhiig baana la ooyayaa buu nabigu leeyahy. idan
salafu saalix nin ka mid ah ayaa gurigiisu xabaal ka dhex qotay marka uu cibaadada ka daalo ama uu naftiisa wax dareemo ayuu xabaasha ku dhaadhici jiray markaasuu intuu jiifsado ayuu qaylin jiray isagoo leh rabbi irjicuun rabbi irjicuun rabbi irjicuun ilaaha uu celi isagoo leh intuu ka soo baxaa buu odhan jiray naf yahay jaaniskii lagu siiye waad haysataa yaha iska sii daynin waxa aan ka warramayaa wallaahi waa dhab waa xaqiiqa aan muran lahayn waa kitaabkii alle subxaanah wa tacaala rabbi irjicuun intaan la odhan maantaa jaaniskii la haystaa wixii mudnaa in laga warwaro waxaan ahayn baa bini aadamku maanta ka warwarayaa warwar soke oo beriis iyo cunno iyo meel la dega iyo gaal baa ku dilaya iyo xabad baa kugu dhacaysa wax yaroo sokaa laga warwarayaa rabu samaawaat naartiisiina cidda ka warwaraysaa way yartay idan wakhtigii waan dhaafay laygu talagalay waxaan ku soo koobayaa leeyahay ilaahay ka barya inaanu meeshaasi ina geynin allaahuma ajirna min annaar allaahuma ajirna min annaar waxaanu nabigu ina faray inaynu ilaahay barino an nacuudu bih inaynu ilaahay ka magan galno cadaabka naareed cadaabkaasi aynu ka warramayno inana waxaa laynooga baahanya inaynu camalka la nimaadno oo ah inaynu raacno dariiqii ilaahay subxaanah wa tacaala inoo jeexay ee rasuulkeennii moxamed ah calayhi salaatu wasalaam uu soo dhiibay wallahu aclam wabilahi towfiiq